waxay u afduubneed al-shabaab waxayna gacantooda ku jirtay muddo 18 bilood ah ayadoo laga soo afduubay dalka Kenya bishii November 2018. Silvia waa gabar Talyaani 25 jir ah waxayna u shaqaysaa hay'ad Talyaani ah oo lagu magacaabo Africa Miele Onlus. qisada afduubkeeda waxay ka soo bilaabatay gudaha dalka Kenya. hotel ay deganeed ayaa waxaa soo weeraray rag hubeysan oo markii dambena la ogaaday inay ahaayeen niman ka tirsan al-shabaab faraca Kenya. kadib waxaa laga soo afduubay hotelkii yaraa ay deganeed oo ku yaalay meel lagu magacaabo Kilifi oo ku taala koonfur bari Kenya. Silvia waa qofkii ugu horeeyay oo ajnabi ah oo lagu afduubta Kenya tan iyo sanadkii 2011. Silvia waxay sheegtay safarka meesha laga soo afduubtay ilaa Soomaaliya ay ku qaadatay 1 bil oo dhameystiran. marka la soo afduubay waxaa la soo marsiyay dhulka hawdka Kenya. raggii soo afduubay ayaa watay mootooyin waxaana halaabay mid ka mid ah mootooyinka. kadibna waxay bilaabeen inay hawdka iyo keymaha Kenya ay ku soo dhaxlugeeyaan ilaa ay ka soo gaaraan Soomaaliya ayagoo iska ilaalinayay inay soo bartilmaameedsadaan diyaaradaha. Silvia waxay dhahday markaan Soomaaliya imaanay waxay idajiyeen qol bishii ugu horeysayna waxay ahayd mid aad iigu adag waxaana ku dhex ooyi jiray qolka. waxay sheegtay in aanan jirkeeda la taabanin lana garaacin wax dhibaato ama jirdil ahna aan loo geysanin. waxay tiri kaliya waxaan arkayay niman afka duuban oo qolka soo galaya kuna hadlaya luuqad aanan fahmaynin. waxay tiri waxaan ka dalbaday buug aan wax ku diiwaan geliyo wayna isiiyeen. warbaahinta waxay sheegtay in lagu qasbay guurshashada nin ka mid ah raggii afduubtay uurna ay leedahay laakiin way beenisay waxayna ku tilmaantay arrin aanan waxba ka jirin. wargeyska Corriere della Sera ee Talyaaniga ayaa qoray inay ka dalbatay afduubayaasheeda inay u keenaan kutubta ay u keeneen waxaa ka mid ahaa Quraanka Kariimka ah wayna akhrisay. waxay tiri markaan Quraanka akhriyay ayaan ku qancay inaan qaato diinta Islaamka waxaana maqlay ayay tiri aadaanka tuulada aan joognay maalintii dhowr jeer ayaan aadaanka maqli jiray. maqaalo badan ayaa laga qoray in islaamnimada lagu qasbay oo aysan iskeeda u qaadanin laakiin haddii lagu qasbay islaamnimada way iska tuuri lahayd xijaabka markii ay soo gaartay safaaradda Talyaaniga ee Muqdisho iyo markii ay tagtay dalkeeda Italy. xataa dadkeeda ayaa u soo bandhigay inay iska siibto xijaabka oo ay dharkeedii hore gashato laakiin way iska diiday arrintaas. dhanka kale ujeedka loo afduubay waa lacag helis iyo in madax furasho la weydiiso dowladda Talyaaniga ee ma ahayn in qasab lagu islaamiyo. laakiin arrinkan ah in qasab lagu islaamiyay iyo in kale maalmaha soo socda ayaa la ogaan doonaa. qaabka lagu soo daayay waxyaabo badan ayaa laga sheegay in madax furasho lagu soo daayay iyo in iskeed loo soo daayayba. maalmihii ugu dambeeyay waxay ku sugneed meel Muqdisho u jirta 30 kiiloomitir. wararka qaar ayaa sheegaya in sirdoonka Turkiga uu ku guuleystay soo deynteeda ama qaab waan ah lagu soo daayay oo uu Turkiga sameeyay. warbaahinta Talyaaniga waxay leeyihiin sirdoonka Talyaaniga oo kaashanaya sirdoonka Soomaaliya ayaa ku guuleystay soo deynteeda. wargeysyada Talyaaniga waxay qoreen madax furasho ayay dowladda Talyaaniga bixisay halka gabadhan iyo xukuumadda Talyaanigaba ay beeniyeen arrintaas. laakiin arrinka ugu macquulsan ayaa ah in iskeed loo sii daayay. markay Talyaaniga gaartay Silvia waxaa u bilowday qiso kale oo soo xasuusisay afduubkeedii hore waxaana soo wajahay dhibaato iyo walwal dhanka nolosheeda ah. kadib markii ay soo gaareen hanjabaadyo dil ah booliska Talyaaniga ayaa gurigeeda duldhigay ilaalo si looga ilaaliyo weerarka axsaabta midigta xagjirka ah. waxaa sii dheer weerar dhinaca baraha bulshada ka imaanaya ay la kulantay xataa weerar ka imaanaya rag siyaasiyiin ah rag jagooyin ka haya dowladda Talyaaniga. mid lagu magacaabo Simon Angelostoni oo la taliye xisbi Talyaani ah ayaa yiri weligiin ma maqasheen yahuudi ka badbaaday xabsiyadii naaziyiinta kadibna qaatay naazinimada asagoo xiran dharkooda. dabcan halkan wuxuu dharkooda ula jeedaa xijaabka ay xiran tahay Caaisha ama Silvia. waan ugu hambalyeynaa islaamnimada Caaisha
dhibkii iyo rafaadkii ay soo martayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu uga dhigo dambi dhaaf. mowduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.